intaad doonto nolow si walbo adduunyadan iyo waqtiga uu kugu dheeraado waad dhiman doontaa ooridaada ayaad ka tagi doontaa carruurtaadana waad ka tagi doontaa noloshan adduunyada waad ka tagi doontaa qabrigaaga ayaadna degi doontaa haddii aad wanaag shaqaysatay qabrigaaga wuxuu ahaan doonaa beer ka mid ah beeraha jannada haddii aad shaqaysato xumaanna qabrigaaga wuxuu ahaan doonaa tog ka mid ah togaga naarta qofka muslimka dhabta ahi marka ay dhibi ku timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waa inuu Allah subxaanahu wa tacaala xiriir la sameeyo ilaahaasoo ay gacantiisa wax walba ku jiraan albaabadiisana uu garaaco marka uu ku jecel yahay qof waxaad dareemaysaa inaad qof wanaagsan tahay oo ay adduunyadani waasac kuu tahay bal ka waran haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jeclaado isagoo ah rabbigii abuuray koonkan iyo rabbiga bixiya farxadda iyo guushaba raxmadiisu waxaa ka mid ahaatay inaad adigu dembi gasho subaxda xigtana uu ku siiyo jaanis aad ku soo toosto caafimaad iyo nabad iska badaa inuu ruuxda kaa qaadee wuxuu kuu soo saaraa qof kuwaana siiya oo ku xusuusiya Allah